Jungle. waxaa loo isticmaalaa xanuunada daran sida dhaawacyada halista ah, jabniinka waaweyn, gaar ahaan burburka lafaha iyo xanuuno waqti badan jiray. Daawada Tramadol ayaa ka mid ah daawooyin si qaldan loo isticmaalo. Daawadaasi oo khatar badan ka dhalan karta mar alaal markii la joogteeyo isticmaalka habka qaldan. Dalkeena Soomaaliya, dadka ugu badan ee isticmaala waa qayb ka mid ah dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta. Qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed sida dadka ka shaqeeya qodista kaabada, ragga ka shaqeeya dhismaha, doonleyda, iyo ragga kaxeeya gawaarida shaqada, iyo dumarka qaar. Daawada Tramadol waxay u kala baxdaa cirbad iyo kaniini. Qofka marka uu isticmaalo daawadani waxa uu naftiisa ku qanciyaa inuu ka helayo farxad joogto ah. Tani waa dareen qiyaali ah aan waxba ka jirin. Sidoo kale waxa uu qofku isu boorgaraamayaa inuu leeyahay awood dheeri ah. Xitaa waxa uu aaminsan yahay inuusan weligii dareemi doonin wax xanuun ah. Haddaba dareen noocee ayaa ku dhalan karta qofka joogteeya isticmaalka daawadani? Inta ay socoto isticmaalka daawadani waxa uu qofka dareemi doonaa hoos u dhac xagga cuntada ah. Waxaa si lama filaan ah u yaraanaya shaqada caloosha. Sidoo kale waxa uu dareemi karaa saxaro la'aan ama calool fadhi. Taasi cagsigeeda waxa uu qofku la kulmi karaa awood yari xagga kaadida ah. Si la mid ah waxaa hoos u dhac ku imaan kara miisaanka qofka isticmaala daawadani. Dadka qabatimay daawadan waxa ay soo saari doonaan calaamado gaar ah sida walwal iyo walbahaar joogto ah, qofka oo dabeecaddiisii isbeddelaysa marba marka ka dambaysa, tuhun badan, baqdin joogto ah, nadaafad darro, daal fara badan, jiif xumo ama hurdo la'aan, qofka oo ka fogaada qoyskiisa, saaxiibadiisa wanaagsanaa, isaga oo saaxiib ka dhigta qofka isaga oo kale ah. Haddaba maxaa dhici kara haddii la joogteeyo isticmaalka qaldan ee daawadani? Haddii uu siyaado xaddiga isticmaalka qaldan ee daawada Tramadol, waxa uu qofka la kulmi doonaa calaamadahan halis gelin kara nafsadda. 1. Qalal degdeg ah oo si lama filaan ah ku imaada. 2. Garaaca wadnaha oo daciifa kana hoos mara normalkiisii caadiga ahaa. 3. Neefqaad fara badan iyo inuu qofka miir daboolmo, taasi oo ugu dambeyn sababi karta in xitaa qofka uu galo koomo. 4. Haddii ay tahay qofta haweeney, waxay halis ugu jirtaa caafimaad darro xagga riximka ama ilmo galeenka.